السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل وناكسن meel walba joogtaan iyo si kastoo aad noola socotaan ku soo dhawaada muuqaal kale oo la xiriira dhinaca arrimaha bulshada waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa sheeko aad u yaab leh warbal hal is jiro hawshu waxa weeye hawshu waa hawlaha socdee hala is ilaaliyo baashi kala shaqaysashada ahayd meel walba ayay gashay ninba meel ayuu u marayaa ninba waxa weeye dhinaca kaleeto ayuu ka soo gelayaa rag baa gabdhaha intay jacayl ku abuuraan waxa weeye kadib waxa weeye hawlo kala sameynaya ragba ninba meel ayuu u marayaa gabdhaha laftoodu wiilasha intay la sheekaystaan jacayl ku abuuraan la isku hawluhu ma yara sheekada aan halkan idinku soo gudbinayno waa sheeko aad iyo aad yaabkeeda u leh aadna waxa weeye sheeko la yaab badan ka dhalisay gudaha waddanka Kenya sheekadan waxaa soo bandhigtay hay'adda dambi baarista ee waddanka Kenya ee CID-da loo yaqaano waa nin dhalinyaro oo shaqadiisu ay tahay maamooyinka retire gareeyay ee laba dhinac labadaba ka retire gareeyay dhinac waa dhinacii shaqada ka retire gareeyeen dhinaca kaleetana reerahoodii iyo inta badan dadkan Kenyaanka waxay sameeyaan islaanta markay yaro weynaato oo inta carruurta oo ay ku talagalaan iyagu ay dhalaan waxay u badan tahay inay labadaasi qof kala tagaan oo dhinacyadu ay ku kala tagaan reernimadii oo ay maamadii single mother noqoto ninkan marka wuxuu raadiyaa maamo single mother sidoo kaleetana dawladda ka shaqayn jirtay oo retire garays bal ninkaas labada arrimood muxuu ku wada falaa ama maxay tahay sababta oo arrintaas u sameeyo wuxuu arrintaas u sameeyaa in ay islaamahaas ama haweenkaasi waaweyn ee retire garoobay gabdhaha yaryar lama sheekaysto islaan yar ma shukaansanayo maamada retire garaysay ee single mother-ka buu shukaansanaya haddana waxaa qasaba in ay dawladda ka soo shaqaysay oo retire ay samaysay muxuu gaadayaa maamooyinka ama dadka dawladda ka shaqeeya marka ay retire garayaan amaba qaar ka mid ah hay'adaha waaweynba waxay qaataan lacago kala duwan oo muddadii ay shaqaynayeen lacago laga jiro loo ururin jiray lacago kala duwan oo meel la dhigi jiray lacagtiiba hal mar u soo go'aysa lacagtaasi marka dawladdu halku qofkan shaqada ka fariisto ayaa la siinayaa oo lagu macsalaameynaya oo lagu sagootinaya amaba hay'adaha qaarkood yaa lagu sagootinaya oo qofkii la siinaya ninkan marka maadaama uu og yahay maamadan inay single mother tahay oo nin iyo qajajac iyo wax ka daba shanqaar uusan jirin sidoo kaleetana ay tahay maamo weyn oo hadda ayna xiiso badan raggu u qabin oo iska weynaatay ay tahay sidoo kaleetana ay lacag soo qaadatay maadaama ay shaqada dawladda ka soo retire garaysay ayaa wuxuu sameeyaa islaanta jacayl ku abuuri dab waa la soo boodi wuu u sheekayn maalin uma sheekaynayo billa uma sheekaynayo maalmano uma sheekaynayo toddobaadya bilow u sheekayn sanad buu u sheekayni ilaa uu shilalka saaro amaba uu sariirta jacayl darti uu ku seexay kadib markii ay jacayl qaada islaantii ama maamadii ayuu leeyahay kaalay war baan ku hayaa hawlihiisa kalena uu ka fuushaday leen waxa weeye iimaanka dadka celiye sida ay DCI sheegtay oo sida kaleetana dee waa dadkan gaalada mar hadday saaxiibaan waa waxooda dhan waa iska wada free marka wuxuu samaynayaa ninkani wuu hawshii kaleetana uu ka fuushay islaantu iskala degayaa waa reer bay u noqonaysaa wuu haysanayaa kadib markay islaantii reer u noqoto uu haysto wuxuu leeyahay oo uu ogaado inayn islaantani war ka daba keenin baa wuxuu leeyahay ii dhegayso heedhe lacagtan aad hayso dhiil ganacsi baan inoo hayaa oo weyse qaba oo isku toosan oo waxa weeye ina anfacaya lacagtan aad meesha ku hayso waxba kuu tari mayso islaan marteeda ku xiratay shilimaan sanado badan oo soo shaqaynaysay xaqeeda laga jaray ayuu leeyahay keen lacagtii waa loo dhiibayaa shaqan ku bilaabayaa buu leeyahay islaantii markuu lacagtii ka qaadaba duurka ayuu la gelayaa oo uu la tagayaa lacagtaas iyada halkaas jacaylkiina wadkii baa galay ku dhimay lacagtiina malageed baa galay oo wuxuu ahaa jacayl lagu malgahayay lacagta qaadashadeeda ee ma uusan ahayn jacayl ninkan ka dhabaha ama jacayl uu hunguri uu u qabo maamooyinkan kaliya uu u sameynaya jacayl uu lacagtaas u qabo ayay ahayd ninba xeeladee waase la kala badiyey
ninkaasi xeelad iyo qorshe aad isaga u anfacay ayuu la yimid. hay-adda dembi baarista waddanka kenyana markay ka hadlaysay aad bay ula yaabtay. waa sheeko mucjizo ka noqotay waddanka marka la fiiriyo. ninkan haweenaydii hadda u dambeysay lacag badan ayuu ka qaaday oo $1,000 aha. wuu adugu islaantii iyo isagu way isfahmeen, way saaxiibeen, way heshiiyeen, reer bay ahaayeen. kadib haddana lacagtiibuu ka qaaday. lacagtii markuu ka qaaday duurka ayuu la galay lacagtii iyada ahayd. sheekhadiina waa u gooyey oo uu kala gooyey lacagtii iyada ahayd. lacagna ma hayso, ninna ma hayso, iyadoo da ahana waxaa weeye lacagtii way weyda. inta badan waxaa laga yaabaa sida ay laanta dembi baaristu sheegayso inuu qofba kolkuu lacagta ka qaadayo uu wax sheego oo qayb gooni ah uu sheego oo uu dhaho waxaas baan ku samaynaya. laakiin waxa ugu badan ee uu sheegayey ayaa waxa uu ahaa biyaha sixada ama biyaha cleaning waterga oo dadku ay cabaan oo caagadaha yaryarka ku jira ee bacaha ka samaysan. biyahaas ayuu u sheegi jiray. islaantan hadda u dambeysay wuxuu yidhi kambani biyahaas caagadahan biyaha lagu soo saaraan soo saaraynaa, waxaa weeye way noo shaqaynaysaa lacagtunu, kanaa kii kale aha, kanaa kuusaha, gidhiish iyo calaa geellaaye. islaantii intii ma iska aamintay wayna qaadatay hawshii iyada ahayd oo halkaas ayay hawsheedii ku soo afjarantay. marka arrintani ninkii isaga ahaa waxaa gacanta ku haysa hadda hay-adda dembi baarista ee waddanka Kenya. xarunta CID-da ayaa lagu hayaa, su'aalo lagu weydiinayaa. waxay barta Twitter-ka ku soo qortay hay-adda dembi baaristu in qof kaste oo ninkani uu lacag ka qaado ka mid ah haweenkaas iyaga ah ama dumarkaas uu fara xumeeyey lacagtoodiina uu qaatay, ay sameeyaan in ay yimaadaan ninkana ay dembiga ku oogaan, ayna sameeyaan in uu dacwadahaas iyo kiiskooda iyo oobigooda la qoro. si dhowaan kiiska maxkamadda loo geeyo oo dembi baaristu intay urursato waaxda dacwad soogiddu kiiskeeda iyo dembigeeda ay waxayste intay urursato ay samayso in ay ninkan isaga ahaa ay dirto oo ay maxkamad u dirto. dacwaddaas haweenkana la arooriyo oo meel la isugu wada geeyo, kadibna ninkan la soo dacweeyo. arrintani waxay muujinaysaa ninkani kaarta badane inuu ahaa. nin aad u kaarta badan buu ah. gabdhihii yaryar ay lacagta haysa uu iskaga leexday oo wuxuus yidhi ama rag kale jacayl la jilayaan amaba waxaa weeye wax badan inaad ka heshaan oo waa isyar ilaalinaysaa. dadkii ama islaamihii la qabay oo dhan waa iskaga tegey. dadka iska caadigaana ma aadahayo oo ama shaqooyinka kaleeto goonida iska haystaa amaba waxaa weeye aan shaqo haysanin caadiga. mahmadanoo uu lacagna ku ogyahay isleeyahayna nin bay hadda u baahanta oo yaro dayacan tahay oo cidna aad uguma sii mashquusho oo cid u soo istaagta ma leh, unbu ayar dhab soo siini. kolkuu cirkiya dhulka ka qariyo jacayl ku abuurana waxaa weeye hawshaa mu ku samayn oo lacagteediibuu ka qaadan. lacagtii markuu qaatana duurka unbuu la geli. lacagtii iyada ahayd wuu la goosanba, gebigeediiba shilin uga tegi mahayo. ado calaa xaasil horey baan idinku sheegnay in hay-adda sirdoonka waddanka Kenya ay ka mid tahay hay-adaha ugu firfircoon, ugu baarista wanaagsan. waxba hadda gacanta ayay ku hayaan, wayna soo heleen. inta badanna dadka kiisas maalin walba waxaa la helaa intaas oo kiis oo mucjizooyin aad dhahayso ayaa waddankan laga helaa oo la arkaa. waxyaabahaas oo dhan marka waxay muujinayaan in qofka bini aadamka markii ay baahi qabato amaba ay xaalad kala jirto amaba waxaa weeye uu ganacsigiisa kartay ee xoolaha la dhacayo iyo nin xoolo qorshe kale ku dhiciyo, ninkan sameeyo, nin waxbaan tahriibin ku dhiciyo, ninkan baan samayn. ninkani kaartadaas iyadu la soo baxay. see baad u aragtaa arrintaas iyada? bal fikirkaaga hoos noogu soo qor.